madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu hambaliyay shacbiga Somaliland munaasabada 26 Juun sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Aalaba nooga soo warama magaalada Hargeysa Faisal Yuusuf Kacaan. sabab loogu dabaaldegay sanad guuradii 19 ee ka soo wareegatay 26 Juun oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada ee Somaliland munaasabadan oo goobjoog ka ah shirgudoonka golaha guurtida iyo wakiilada xildhibaanada wasiirada iyo waliba asxaabta kala duwan ee xisbiyada qaranka Somaliland u cid kulmiye ee wadani qaar kamid ah safiirada Somaliland u fadhiya dalka sida Ethiopia, Djibouti iyo Turkiga madaxweyne ku-xigeenayaashii hore ee soo maray Somaliland siyaasiyiin tiro badan iyo waliba madaxweynihii hore ee Somaliland Ahmed Mohamed Mahmoud Silaanyo isaguna goobjoog ka ahaa munaasabadan sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galay madda sare ee Somaliland abwaano fanaaniin iyo marti sharaf aad u tiro badan oo goobjoog u ahaa sanadka 2019 ee lagu dabaaldegayo xuska sanad guuradii sagtay markii ay Somaliland ay qaadatay xorriyadeeda sanadkii 1960 asxaabta kala duwan ee xisbiyada mucaaradka ucid iyo wadani iyo waliba qaar kamid ah wasiirada iyo xildhibaanada ayaa halkaasi ka hadlay kana sheekay taariikhdii dheereed ee soo martay Somaliland madaxweynaha Somaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay Muuse Biixi Cabdi ayaa ka sheekay xorriyadda Somaliland iyo sida u soo martay qaadashada isagoo sheegay in Hargeysa ay tahay halkii ugu horeysay ee Soomaali calan laga taago waxa uu u mahad celiyay guud ahaan shacabka reer Somaliland iyo waliba dhalinyarada say isku tiirsan yihiin ay xorriyadooda ila haatan u ilaashanayaan isagoo xusay 18 May iyo 26 Juun bay yihiin maalmo qaran oo qaranku xuso sidoo kale waxa uu ka hadlay dawladda Ethiopia isagoo tacsuud diray saraakiishii lagu dilay dalka Ethiopia wuxuuna madaxweynuhu sheegay inay Somaliland jeceshahay horumarka wadamada jaarka iyo nabadooda maadaama ay xiriir walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay la leedahay waxa uu sidoo kale halka madaxweynuhu uu ka hadlay dawladda Soomaaliya iyo xiriirka ka dhaxeeya iyo arrimo fara badan oo madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaatay waxaana hadaladii madaxweynaha kamid ahaa ragiyo dumarba aad baan ugu soo dhaweynaya ka soo qaybgalka xafladan lagu maamuusayo sanad guuradii xorriyadda Somaliland oo ka soo wareegtay 59 sanadood oo ah waliba maalintii u horeysay ee dal Soomaaliyeed isticmaal ka baxo ee Soomaali xor noqoto taariikhana ay Somaliland leedahay aad baan u soo ka soo qaybgalka xafladan dhammaantii boqoradii mahadnaqina walaalayaal Somaliland sidoo Cabdulqaadir ba sheegay maanta waxa ku hareeraysan gobolka xasarado badan iyo xaalado siyaasadeed oo culus marka ugu horeysa qaranka Somaliland afkiisa ku hadlayo waxaan tacsiin u direynaa dawladda Ethiopia ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo dhammaan shacbigooda madaxdii sare ee qaranka ee la laayay aad baan uga xunahay dhibaatada gaadhay dalka injaarka nahay saaxiibka nahay waan ku garab taagan wixii cadawga ku soo duula ee qaranimada waxyeelaya waana dhibaysaa iyo dal waran injaar nahay oo saaxiib nahayba waayo Somaliland waxay u taagan tahay nabad meel walba waa ka tacsiideynaa waan ka xunahay ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa in xaaladdu nabad ku dambayso iyo Faisal Yuusuf Kacaan wararka warbaahinta Royal Hargeysa.